haddii lagu yidhaahdo ka soo qaad 3 sano kadib waad dhimanaysaa ilaahay baa ogi halkaa inoo dhigo laakiin kaba soo qaado maxaad yeeli lahayd isweydii maskaxdaada kula sheekayso oo waxyaabaha maskaxda lagula sheekaysto weeye lagu tuujiyo haddaanad xaas lahayn ood dhalinyaro tahay ka soo qaad adigoo xaas sameeyey oo carruura kaa daba ooyaya oo mas-uuliyaad ku saaran yihiin imika waa iska socsocotaayoo culayskaas kuma saarna laakiin culayskaas isagoo madaxa kaa fuulay tawaqac haddaad reer leedaho iminka isugu kaa beegantaho madrasadana aad dhigto iskuulkana aad wax yar ka dhigto biil yaroo diirani ku soo galo ka soo qaad waa adduunyayadoo berri lagu yidhi xaaji waannu kaa maarannay soo ducee maxaad yeelaysaa marka haddaad nolosha qorshe ka leeday kuma dhibayso walloonay ku dhibay dee lagu idhahdo shaqada ka tag intaa in lee kuma yeelayso haddaad laakiin noloshaada gebigeeduba ay saaran tahay iskuulka oo hebel baan dhigaa bes meel heblaayaan ka shaqeeyaa bes maalinta lagu idhahdo iska tag waannu kaa maaranee dhabarkaad ka jabaysaa kalxantaad ka jabaysaa meel aanad weligaa ka soo noqon karin baad gaadhaysaa duufkii ilmadaad isku daraysaa leesh laa xayaata lak laa mashruuca lak haddaad se qof iska mashruuc la tahay kuma dhibayso walloona culaysba kugu keenay waayo marka hore aad iska tahay 110 khadad iska sii dejisatayo aad ku tala gashay low sidan u dhacdo maxaa la yeelaya haddii kan yimaadana maxaa la yeelaya marka hore aad qorshaha kuugu jirtay